بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله waxaynu isku dayi doonaa maanta inaynu baranno home page-ka sida loo sameeyo marka la joogo website-ka ama dashboard-ka ugu horeeya ee website-ka laga daalacanayo inaynu isku dayno inaynu sameyno. Marka kan mid la mid ah ayaynu dabiiqi doonaa hadduu alla idmo. Si aynu sameyno waxaan soo furan doonaa qaybta search-ga ayaan tegi doonaa, waxaan ka search gareyn doonaa VS Code, then waxaan ku dhufan doonaa qaybta inta ay ku qoran tahay. VS Code-ka markuu ii soo baxo waxaan iska soo xiri doonaa qaybtan ugu horeysa, then waxaan tegi doonaa qaybta ay ku qoran tahay file waxaan kasii dooran doonaa qaybta ay ku qoran tahay new file. Then intaa markaan sameeyo halkaa waxaan soo sameysan doonaa extensionka koobaad aan loo bixi doonaa HTML, and then extensionka waxaan siiyey HTML, file magacuna waxa weeye index, then waxaan leeyahay enter ayaan siin doonaa. Waxaan tegi doonaa qaybta ay ku qoran tahay desktop ayaan dooran doonaa. Desktopka markaan doorto waxaan ula bixi doonaa folder si waxa weeyaan aan kuwa kale uga garto. Folder markaan sameysto folderka waxaan la bixi doonaa website, enter baan markaas siin doonaa, open baad markaa ku dhufan doontaa, create ayaa dooran doontaa. Filekaan soo sameynay waa HTML-kii, fileka labaad ayaan sameysan doonaa waa filekii CSS. CSS-tan waxaan la bixi doonaa magac ahaan style.css ayaan leeyahay. Then isagana enter baan siin doonaa. Intaan markaan siiyo halkii mid la mid ah ayuun baan ku save gareyn doonaa. Labadii hadda waan haystaa. HTML-ka ayaan soo qoran doonaa declaration-kii, head-kii, title-kii iyo qaybihii kale. Then saan u soo sameysto mar igu soo wada baxda waxaan qaban doonaa shift+1, then waxaan siin doonaa enter baan siin doonaa. Waxaan tegi doonaa qaybta header-ka furan iyo header-ka, waxaan leeyahay header furan iyo header xidhan dhexdiisa oo title-ka ka dambeysa. Halkaa waxaan ula bixi doonaa lifaaq loo yaqaano linki ayaan ku qoran doonaa, enter baan siin doonaa. Halkaa waxaan ula bixi doonaa magacii page-ka labaad oo CSS, then save aan leeyahay. Hadda waxay ka dhigan tahay labadii way isku xidhan yihiin HTML-ka iyo CSS. waxaan tegi doonaa markaa qaybta markaan soo dhameeyo qaybta ay ku qoran tahay body xidhan furan dhexdiisa ayaan markaa ku dhufan doonaa. Dhexdiisa markaan ku dhufto halkaa waxaan ka sameysan doonaa class-ka aan ula bixi doono nav aan ula bixi doono. Class si loo sameeyo waxayna haysanaa indicator loo yaqaano dot baan ku dhufan doonaa, dot iyo magacii aan rabay inaan loo baxo. Intaas ayaan siin doonaa, inta ayaan siin doonaa. Marka wuxuu sameyn doonaa div oo container iyo class-ka oo loo yaqaano nav, sidaa awgeed si aan hadhow selector ugu sameysan karo haddaan rabo inaan wax ka bedelo qaybta aan magaca ula soo baxo. Intaa markaan soo sameyno waxaan leenahay halkaa waxaan gashan doonaa image ayaan soo gashan doonaa. Image-ka waxaan leeyahay waxaan soo gashan doonaa marka aan tegi doonaa folder-kii aan soo sameysanay aan la soo baxnay website. Waxaan tegi doonaa desktop-ka, waxaan dooran doonaa folder-kii waa kan, labada nuun bay igu jira. Waxaan soo gashan doonaa marka sawiradii baan soo gashan doonaa, labadan aan soo qaadi doonaa, sawirka waa soo copy gareyn doonaa. Then waxa weeye folder-ka ayaad labadii sawir ama sawiradii aad rabtay inaad content-iga u isticmaashid aad gashan doonta. Midna waxa weeye waa logo oo PNG ku save gareysan, midna waa kii background-ka noqonayo ku save gareysan isaguna JPEG. Then waxaan tegi qaybtan waxaan ku save gareysan logo, then waxaan leeyahay enter. Halkaa marka waxay soo gelaysaa logodii waxaan siin doonaa cabir baan siin doonaa width-ka waxaan ka dhigi doonaa 600 oo pixel ayaan siin doonaa. Intaa markaan soo sameysto waxaan tegi doonaa qaybtan waxaan u sameysan doonaa hadda halka inay aragno header-ka waxay nooga muuqdaa logodii, site title-kii iyo navigation-kii. Intaasaan rabaa inaan hadda soo sameysto. Site title-ka ama magacii ayaan soo sameysan doonaa. Waxaan leeyahay h1 markaan idhaahdo enter baan siin doonaa. h1 waxaan u bixin doonaa isagana lifaaq baan siin doonaa. Lifaaqaan siin doonaa waxaa loo yaqaano isagana class ayaan siin doonaa. Class-ka waxaan u bixin doonaa header ayaan u bixin doonaa. waxaan la bixi doonaa header markaan la baxo dhexdiisa san tegi doonaa. halkaasaan markaa magacii aan rabay aan ku qoran doonaa. intaa marka magacii ku qorto haddaan rabo magaca inay laba midab iga soo baxaan span baan raacin doonaa. Span markaan raaciyo halkaa kalena magacii kale ayaan ku qori doonaa. intaa markaan saa soo sameeyo waxaan tegi doonaa si aan u arko qeybaha aan soo sameeyey website-ka ayaan tegi doonaa. qaybta index-ka ayaan ku dhufan doonaa HTML. marka halka waxay noo soo galeen magacii, sidoo kale waxay noo soo galeen loogada ayay noo soo gashay. qeybahan kale aan rabaa inaan soo sameeyo navigation saan u sameeyo waxaan leeyahay isagoo furan iyo xidhan oo dhigta koobaada gal. halkaa waxaad naga sameysaa UL wax loo yaqaano UL-ka enter C, LI ka sii samey, LI-gana enter C, halkaa A ka sii samey, iyadana enter C. halkaa dhexdiisa waxaad nagu qortaa home ku qor. waxaad ku qoraysaa home baad ku qoraysaa. si la mid ah LI ku dhufo, enter C, A ku qor, then waxa weeye oo ankara halkaana waxaad ku qortaa marka about nagu. haddana enter C, LI de enter C, then waxa weeye halkaana ankar de enter C. halkaa dhexdiisa waxaad ku qortaa qaybta labaad oo zarfaysa.
qaybta ugu dambeysana sidoo kale isagana halkaa dhexdiisa ayaa ku qoran doonaa contact. Okay, intaas waxaan leeyahay control plus s ayaan siin doonaa. intaa markaan siiyo waxay nooga dhigan tahay qaybtaas inuu soo samaysan. waxaan ku darsan doonaa hal qayb dhifkaas ayaan waxaan leeyahay enter baan siin doonaa. waxaan soo samaysan doonaa dhif kale. dhifka kalena waxaan ula bixi doonaa class ayaan u bixin doonaa. waxaan leeyahay classkana waxaad ila baxdaa hero igu bixi. dan waxa weeye ama hero section oo kale baan ula jeedaa. dan waxa weeye qaybta markaynu samayno ay qaybta noo soo baxda halkaa waxaan ku qoran doonaa aan samaysan doonaa isla qayb kale oo class ayaan samaysan doonaa. classkana waxaan la bixi doonaa container ayaan la bixi doonaa. container markaan la baxo dhexdiisan tegi doonaa. waxaan kasii furan doonaa h1 waxaan la bixi doonaa welcome ayaan leh. qayb haddana waxaan samaysan doonaa paragraphkana waxaan la bixi doonaa isagana waxaan leeyahay loading 10 baan siin doonaa. enter baan siin doonaa. waxaan ula jeedaa qaybtan say lagu soo baxdo qaybtan hore oo hero sectionka ama qaybta boardga inooga soo muuqan doonta ayaan rabaa inay noo soo samaysanto. intaas waxaan leeyahay waa inta html inuu iga filan yahay. dan waxaan tegi doonaa qaybtan loo yaqaano css markaan soo furto css waxaan qaban doonaa shift iyo lambersideed ayaad isku qaban doontaa. shift iyo lambersideed markaad isku qabatid waxaad soo furan doontaa brace enter baa sii doontaa. dhexdiisa waxaad xusi doontaa ood ku qoran doontaa qaybta koobaad waxaad leedahay margin ka waxaad iga dhigtaa 0 iga dhig. sidoo kale waxaad igu samaysaa qayb loo yaqaano barinkana waxaad iga dhigtaa isagana 0 iga dhig. barinkana waxaad ka dhigaysaa 0 baad iga dhigaysaa. qaybta ugu dambeysa waxay ka dhigan tahay qaybta loo yaqaano bogus. qaybta labaad waxaan leenahay boguskuna hadhow wuxuu noo samaysan doonaa noo awoodi doonaa inuu qayb walba hadhow wiriskiisa iyo cabirkiisa aanu wax ka bedeli doono. marka qayb walba wuxuu noo gelin doonaa bogus buu noo gelin doonaa. boguskaasi hadhow kaga maamulan doonaa. waayo margin iyo barin maxay noo qaban doontaa? margin iyo barin waxay noo qaban doontaa inay qaybtan halkay nagu joogta inay inagu dhejiso waxa weeye si in movement u samayn karno inay qaybta gidaarka inagu dhejiso ama qaybta waxa weeye hadda waa kala fog yihiin. markaynu ahno refresh aan siino wuxuu ku dhigayaa markaa qaybtii gidaarka ahayd ayuu ku dhigayaa. marka wax space ma dhaxayn doonaan. si aan qayb walba aan hadda u qaadi karno ayuu access inoo siin doonaa. okay, intaa markaan soo samayno waxaan leeyahay qaybta aan soo samayno waxaan tegi doonaa qaybta loo yaqaanay nav. magacii aan la soo baxnay oo naafa oo halkaa inugu qornaa. haddaan korsado magaca halkaa inugu qoran nav ayaan soo qaadan doonaa. nav waa class buu yahay. marka waxaan ka hormarinaya oo shardi ah dad baan ka hormarinaya taasoo ah indicatorka nav. halkaa markaan marayo waxaan leeyahay waxaad u bixisaa background igu samee. backgroundkana waxaan rabnaa hadda inaynu soo horumarino. background color ayaan siin doonaa. colorka waxaan leeyahay waxaad ka dhigtaa white ka dhig. waxay soo samayn doonaa hadda inaynu soo horumarino qaybtaas sare. qaybtaas sare waxa weeyaan midabkeedu waa caddaan. inaynu qaybtaas sare aan ku horeyno waayahay. qaybtaas sare markaan ku horeyno waxaan u baahanahay inaynu waxa weeyaan loogadu ay halkeeda inoo taalo diyaarka inay kasoo durugto oo ilaa spaceka u jirto. kan kale inuu intaa spaces ku jiraan. qaybahana inay waxa weeyaan flexible yihiin. okay, intaa markaan samayno waxaan leeyahay midabkii ayaan soo bedelay. midabkii backgroundka caddaan baan ka dhigay. caddaankii markaan ka dhigay waxaan leeyahay qaabka u muuqanayana waxaan ka dhigayaa display. qaabka u muuqanayana waxaan ka dhigayaa displayna waxaan ka dhigayaa flex. mid waxa weeyaan is-horgala ayuu markaa noo noqon doonaa. haddaa ilaa aragtaan wuxuu noqday maxay mid saa isku horgala oo waxa weeye laakiin wax space aana u dhaxay. marka flexible waxay naga caawinaysaa inuu shaygii ay is-horgalaan. sidaa awgeed intaa markayn soo samaysano waxaan leenahay waxaad u samaynaysaa heightka waxaan ka dhigi doonaa 80 pixel. 80 pixel ayaan heightka siin doonaa. sidoo kale waxaan u samayn doonaa width baan u samayn doonaa. widthkana waxaan ula bixi doonaa isagana 100% ayaan siin doonaa. marka waxaa kordhaysa haddeen eegno qaybtan widthkiisa iyo heightkeedii weeyaan. sidoo kale waa heightkii. waxaan leenahay refresh garee. dan waxay noqonaysaa marka mid wal diyaarkii kasoo durugto oo qayb walba inta aan soo asayn garaynay waxa weeyaan ay ku dabaqmato. dan intaa markaan soo samayno waxaan tegi doonaa isla qaybtii code editorka markaan tagno waxaan leenahay qoraal walba ha noqdo dhexda mid ka muuqda. waxaan leenahay align item walba inugu jira ama shay kasta ama looga ahaado ama navigation ha ahaado mid u janjeera dhanka dhexda inuu yaalo inooga dhig. waxaa dhigi doonaa inay dhex u ka yaalo mid dhexda yaalo. okay, intaa markaan samayno waxaan leenahay
inaynu kala durdurkino aynu justify content inaynu justify karayno. Justify waxaa loo yaqaanay marka wordka la joogo inuu qayb walba uu kaaga dhigo mixed qoraalkaagu meeshuu ku dhammaanayo ilaa meeshuu waxa weeye ka bilowmanayaba inuu waxa weeye aanu qoraalkaagaasi aanu kala dhaadheeraan oo isku wada mid noqdo. sidaa awgeed waxaynoo dhan wuxuu ka dhigi doonaa kuwa markaa mixed isku ah. dan waxay leenahay qaybtan waxaad u samaysan doontaa space u dhaxaysa space between. waxaan leenahay maadaama ay hoosteeda isaga jiraan wayna kala yar durdurkanayna space baan leenahay. marka mid walba meesha ayuu geyn doonaa. hadda space baa wada dhexeeya oo waxaan nidhi qayb walba space ha geliya. intaa markaan saa soo samaysanay waxaan xusi doonaa marka qaybtii kale. qaybtan waxaan rabnaa inaan gidaarka ka soo durkino ay sidan oo kale inaan ka dhigno. si intaa u samaysano waxaan tegi doonaa marka code editor-ka ayaan ku dhufan doonaa. code editor-ka ayaan tegi doonaa. waxaan xusi doonaa qayb loo yaqaano padding. padding waxaan nidhi waxay soo durkinaysaa qaybaha kala durugsan. padding waan leeyahay qaybta koowaad waxaan leeyahay paddingku wuxuu u qaybsamaa qayb bottom, right, waxa weeye top ilaa iyo left. afartaa dhinac ama afartaa jaw ayuu qaybsamaa. waxaan leeyahay qaybta bottomka oo xagga sare ah waxaad ka dhigtaa 0. qaybta waxa weeyaan laakiin right-ka isaga waxaad ka dhigtaa markaa 5% ka dhig 5% inuu soo durkiyo. marka qaybtii naga fogeed ayuu soo durkin doonaa. hadda ila aragta qaybta wakaa intaa wuxuu soo durkiyaa 5 pixel 5% ayuu soo durkiya. dan waxa weeye intaa markaan ka nimaadno waxaan leenahay waxaad siisaa positionkiisa waxaad ka dhigtaa mid fixed mid positionka uu ku jiro afarta dhinacba waxaad ka dhigtaa mid markaa fixed. positionka oo dhan markaa wuxuu ka dhigi doonaa inuu qayb isku wada mid ah uu kasoo fixed karayo. hadda qayb walba fixed bay noo tahay. sidaa awgeed intaa markaan ka imaado waxaan leenahay waxaad samaysaa left isagana 0 ka dhig. dhanka bidixda waxna yaana u badnaanin. dhanka midigta waxba isagana yaana u badnaanin isagana 0 baan soo siin doonaa. dhanka sarena waxba yaana u badnaanin isagana waxaan soo siin doonaa. topkana isagana 0 ayaan soo siin doonaa 0%. intaan waxaan leeyahay control plus s baan leeyahay waa save gareynaya marka soo refresh gareynaya. qayb walba wuxuu ka dhigi doonaa marka qaybta walba wuxuu ka dhigi doonaa 0 oo qaybna ma kordhiso. intaa markaan soo sameeyo waxaan u iman doonaa inaynu qaabkan aan u kala durdurkino maadaama ay saa u kala durugsan yihiin inaynu qaybahan isku huursan oo order listiga ah inaynu kala qaabka u asayn karayno horgala inay noqdaan kuwa ishorgala. waxaan leeyahay markaa qaabkaas naafkayga ayaan soo furan doonaa oo waxa weeye classkii ahaa. classka waxaan leeyahay qaybtan u soconaa hadda waxa weeyaan waa qaybtan waxaa loo yaqaanay oo l ayaa loo yaqaana oo order listig ah. sidaa awgeed oo lka ayaan ku qori doonaa oo taagii ah. taagaasina waxa weeye waa halkan inooga tilmaamo. taaga markaan soo furto waxaan leeyahay taaga qaybta labaad horta displaygiisa waxaad ka dhigtaa mid waxa weeyaan ishor kala ka dhigo falaxi ah. intaa markaan sameeyo waxaan leeyahay sidoo kale waxaad iga dhigtaa list styleka aad taxaysaan ha noqdo mid nan bensin doonaa marka wax style ayaanu lahaan laakiin waxa weeyaan hays hor. sida stylekii wuxuu inaga saarayaa inuu bulletiskii ama dhibcihii uu styleka ka saaro. marka intaa markaan sameyno waxaan leenahay isagana waxaad nagu samaystaa font size-kiisana waxaad ka dhigtaa 20 pixel ka dhig. qaadna yaana u badan fartaasi 20 pixel ha noogu muuqato. marka wuxuu ka dhigi doonaa inuu fartii soo rooreynayo laakiin weli sidii bay waxa weeye isugu dhegan yihiin. intaa markay sameyno waxaan leenahay naafka iyo classki ayaan soo furan doonaa. ul ayaan samaysan doonaa. li ayaan samaysan doonaa. li markaan samaysto waxaan leeyahay briska ayaan soo furan doonaa. briskii markaan soo furto halkaa waxaan ku xisi doonaa text decoration yacni decorationka underline-ka ah hay noqdonan hay noqdo text decoration wax calaamadaha hoose underline-ka ah calaamadaha hoose oo dhan buu soo saari doonaa oo markaa inaga saari doonaa. taa markuu saaro waxaan leenahay sidoo kalena ha saaro positionkiisuna relative ha noqdo. waayahay text decorationka halkaa waxaan leenahay text decoration oo nidhuma baahni. waxaa ka horeysa text decorationka inaynu idhaahno baadhinkiisa kala durdurki horta. hadda waxa weeye inagu baahidan u baahanahay waa inuu kala durdurkiyo
marka waxaan leenahay baadhinkiisu ha noqdo qaybta koobaad waayahay baadhin baan leenahay baadhinku ha noqdo qaybta koobaad 10 pixel ha durugto oo qaybta xagga sare oo topka 10 pixel ka soo durugto sidoo kale inta iyagu isku tirtirsanayaan oo waxa weeye dhanka right-ka ana ay isku tirtirsanayaan 30 pixel ha noqoto fresh kare de waxa weeye intaas ayay isku jiri doonaan midkii xagga sarena 10 pixel bay u jireen okay aan ka gudbo inta markaan sameeyno waxaan leenahay position-kiisuna ha noqdo position-kiisuna ha noqdo relative ha noqdo mid dhac kastaba xiriir la leh hadday top tahay hadday right tahay hadday left tahay mid intaba relative la oo intaba waxa weeyaan cabir isku mid ah ka soo qaata inta markaan sameysano waxaan leenahay qaybaha asaas inuu asengelisan yihiin waxaan iman doonaa marka inaynu bulletiska yar aan ka soo saaro underline-ka naaf baan leeyahay naaf markaan yidhaahdo ul-ka ayaan xorisi doonaa li-ga ayaan qoran doonaa halkaa waxaan ku xisi doonaa baan ku xisi doonaa oo ankara dan waxa weeye waxaan leeyahay text decoration-ka ankarka waxaad ka dhigtaa naan ka dhig sidoo kale waxaan u baahnaan karnaa haddii aan u baahano waxaan u baahan karnaa qayb kalaad waxaan kalarkoodana waxaad ka dhigtaa tusaale buluug oo kaleba ka dhig qaabka u muuqanayeen kalarka fresh baan leeyahay sidaa awgeed buluug buynu uga acsan karaan doona hadda waxaan soo sameynay qaybtii headerka ayaan soo sameyn qaybtii ugu sarreysay oo xogaha laga arkayay way sidoo kale waxaan oran karnaa halkaa waxaan ka samaysan karnaa qayb loo yaqaano body qaybtan halkaa ayaan body ka samaysan doonaa body ayaan leeyahay body markaas iyo braceska ayaan soo furan doonaa waxaan leeyahay fontiga wax walba oo kaaga soo muuqan doona fonti familigeeda ama waxa weeyaan fonti typography-geeda waxaad siisaa qaybtaasaan ka dhigi doonaa sains ayaan ka dhigi doonaa refresh baan leeyahay den waxuu ka dhigi doonaa qaybta ayuu nagu asayn garayn doona okay intaa markaan soo sameyno waxaan u baahannahay inaynu xusano haddii aynu u baahannahay hover xaggoosaan tegi doonaa qaybta haddaan u baahannahay hover halkaa waxaan leeyahay naaf baan siin doonaa naafkii waxaan leenahay dadka horeysi naaf dheh naaf markaan siina ul dheh ulid double code hover marka waxaan leeyahay qaybtaa marka column baan siin doonaa hover baan leeyahay hoverka kalarkan baa sheegi doonaa marka kalarkan waxaan ka dhigi doonaa xasaan baan ka dhigi doonaa marka waxay noqon doontaa markaan saa u dul saaro waa inuu midabku ii soo baxaya uu tilmaamaya hover xasaan sida had halka inooga muuqato intaa markaan soo sameeyo waxaa ii hadhay inaan soo gashado sawiradii qoraalkanna inaan dhexda soo dhigo maadaama hadda qoraalkii aanu halkaasaan tegaya waxaan leenahay bodiga waxaa inooga muuqanayay aynu yidhi hero sectionka waxaanu soo baxsanay magacaan usoo baxinay waxa weeyaan qaybta bodiga markaynu imaadno hero sectionka shiro ayaynu soo bixinay sidaa awgeed qaybtan tegi doonaa halkaa ayaan ku dhuban doonaa waxaan leeyahay waxaad iga samaysaa tag loo yaqaano ama class loo yaqaano ayaa igu jiray classkaas oo loo garanog yahay hero loo garanog isagana briska ayaa soo furi doonaa intan ayaa siin doonaa intan markaasi halkaa waxaan ka bilaabi doonaa backgroundka uu noqon doono background uu yeelan doono image kusoo gelin doona markaa sidoo hore haddeen html kusoo gelin jirnay hadda css-ka ayaan kusoo gelin karnaa background image baan ku qoray url ayaan qori doonaa marka halkaa waxaan qori doonaa markaa sawirkii halkan uu yaalay sawirka ayaa soo gashan doona amg oo ku save garaysan jibe intaa markaan sameyso waxaan leeyahay backgroundka lefterkiisa waxaad iga dhigtaa no repeat inaanu soo noqnoqon oo waxa weeyaan aan idhahdo no repeat ayaan siin doonaa backgroundka wax sidoo kale waxaan leeyahay backgroundkan aan soo gashanaya sizekiisu waxa weeyaan background sizeku waa cover aynu mid wajahaya cover waxaan leeyahay sidoo kale height haddaan u baahanahay heightkiisuna hay noqdo 10 fh ayaan siin doonaa intaa markaan siiyo waxaan leeyahay refresh baan siinayaa refresh markaan siiyo waa inuu iisoo galaa markaa sawirka waa inuu iisoo galaa marka sawirkii ayaa qaybtan iisoo galay marka intaasba waxay ka wakiil yihiin sawirkaasi iyo qaabku usoo baxay okay intaa markaan siiyo sawirkii soo baxay waxaan leeyahay sawirka waxa weeyaan qoraalka waxaad ka dhigtaa kusoo muuqan doonaa align itemka waxaad ka dhigtaa media less center
shay kasta waa inuu bartanka istaagaa. sidoo kale waxaan leenahay haddii aan u baahno kalarka qaybtaan uga baahannahay waa qaybta farta waxaan leenahay kalarka black ka dhig. black markaan ka siino waxaan leenahay sidoo kale intaadan soo furo hadda weli qoraalkii qaybtaan tegi doonaa. okay qaybtaan u baahannahay inagu waa qaybtana weli qoraalkii inooma soo waayo weynagaan soo asayn kareen. waxaan leenahay qoraalka wuxuu qaabka u soo muuqanayo qaab ha noqdo falaxi. tan waxaan leenahay fresh aan karaynayna qoraalkii marka wakaa halkaa inooga soo muuqda. qoraalka si aynu gidaarka halkan uu ku dhegsan yahay qaybtan uu ku dhegsan yahay inaynu baarinkiisa soo bedelo waxaan tegi doonaa markaa code editorkii baan ka tegi doonaa. waxaan leeyahay qaybtaasi siduu u muuqdo waxaad leedahay qaybtaa baarin baad siin doontaa. baarinka waxaan leenahay waxaad ka dhigtaa qaybta koobaad 0 ka dhig. qaybta koobaad waa qaybtan ugu horeysa waa topka waa xagga sare. qaybta lixtaana waa dhanka midigta waxaad ka dhigtaa 60 pixel kasoo dur. sidoo kale waxaad u sameysaa justify-giisa waxaad ka dhigtaa justify contentiga ama meesha contentigu uu iska leekaanaya ha noqoto mid dhanka midigta kasoo muuqata bidixda kasoo muuqata. tan waxaa noqon doonaa in gidaarkan kasoo durkiyo qoraalkana uu kasoo muujiyo dhanka bidixda. haddii aynu nahno center halkaa wuxuu dhigi doonaa marka qoraalka bartanka ayuu inoo dhigi doonaa. intaa markaan sameyno waxaan leenahay fonti colorkana waxaad siisaa ama fonti size-ka ayaan leeyahay. fonti size-kana waxaad siisaa waxaad ka dhigaysaa large. tan waan save garanayna. intaa waxaan leenahay qaabka waan ku sameynay waayahay kii halkan inooga muuqanayay ayaynu qaabka ku sameynay. marka hadda qaabkiisa isugu mid yihiin saasaa usoo sameyn doontaan insha allah. halkaas ayaynu kasii ambaqaadi doonaa aynu qaybihii kalena ayaynu ku sameysan doonaa website dhammaystiran hadduu aan leeyahay. assalaamu calaykum.